علمية والله الدريراية doofaarradu wadan jiruu dila yidhaahdaaye iyaguna markaasay ku diidi mahayaane bal in meesha lagu doorsan yahay wuxuu daliilkiiya duqaydii badnayd ee ku lumay duudsi iyo jeedal dhammanaanshaha reer tolkay loogu dawgalay sidii bay u dabaroorayaan daalinkii rogaye dooxiyo hadday nala degaan degalka buuhoodle waxaa lagu durdurin ee bahay uma daraadeene sidii dumar dagaal iyo afxumo uma dulqaateene diyaar uma hadlaan wiilashii dawladda ahaaye daaroodka waa wada dhasheen dir iyo haabkiise hadday deris wadaagaan nin kale dacal ma waayeene alla may iskaga soo durkaan deris ma laayeene gabaygaasna waxa mariyey cali dhuux gabayadii uu mariyey oo dooda ahay kula doodayay u mariyey ninka la yidhaahdo in cabdulla xasan waa gabaga ugu hufan inta kaleeto waacay iyo maaragtay muxuu ahayey waxaan la sheegi karin haddii wax la yidhi rag colooday cay iyo abxumo waa camaladoodii waxaa dhegaystayaal intaasna halkaa ka gudubno waxaa daba sii socday dagaaladii dhex yaalay dowladda ingiriiska iyo sayidka iyo daraawiishtiisii sayidka waxaa qalcadiisa ugu adag ahayd degmada la yidhaahdo taleex waxaa ingiriisku deetan halkaasu ka saaray markii dayuurada uu ku garaacay deetana sayidka iyo wixii ka hadhay daraawiishtiisii waxay u gudbeen dhulka soomaalida ee ka tirsan dalka etoobiya si markaasi dib ay isugu abaabulaan ciidan cusubna ay u helaan wakhtigaasi ingiriisku ah niman soomaaliya oo odayaal ah ayuu sayidka u diray si loogu soo qanciyo inuu isdhiibo isagana xarun diineed looga sameeyo galbeedka maxmiyadda hase yeeshee sayid maxamed cabdilla xasan ergadaasi waa uu diiday wakhti yar kadib sayidka iyo raggiisii waxa weerar ay ku soo qaadeen qabaa'ilka soomaalida ee degan dhinaca sohdinta etoobiya dabadeedna iyada oo ay taageero ka heleen ingiriiska ayay qabaa'ilkaas iyaguna ku duuleen xaruntii daraawiishta oo halkaasi si xun ay ugu jabiyeen rag aan badnayn iyo sayidkii dabeetana waxay u baxsadeen imey oo ku taala dhinaca etoobiya halkaasi oo ay gaadheen bishii oktoobar sannadii 1920 dhammaadkii sannadkaasi oo ahayd 21 bishii disembar ayaa sayidku ugu dhintay imey kaneeco amaba duray sida taariikhdu ay qorayso waxaa da'diisu wakhtigaasi ahayd 56 jir sayidku markii laga adkaaday waxa uu tiri haddaba gabay dheer oo dardaarana oo dadka soomaalida ah uu kula hadlayo aw daahirad qarshe haynoo mariyo dallacaad jacayl baad kurtii noola dhirirtane dubaaqiina waa xasaa u galay daara buuxsadae duukama heshaan faranji aada wadhigataane dabin buu idin qoolayaa waydin daagayaaye dirhamkuu idin qubaahayaa dib u go'aysaane markaa hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiise markaa xigaana daabaqaada wuu idin dareensiine markaa xigaa dalkuu idinku odhan dunyo dhaafsadae markaa xigaa dushuu idinka rari sidaan dameeraaye giddigeedba soomaali baan dayrka ka ahaayeen dhaxaan daraawiishta idhi doonta gaaladae dhaxaan askaara uu dalbaday dabaada taageene dhaxaan dabkii iyo la hadhay dunyadu wadaaye dhaxaan intaan janaana dilay soo dabaaldegeeye dhaxaan dekeeda uu xamiray duniyo roge ninkii diriirta geeya maalin bay dunidu iishaayeen mantu aan diyaafadiyo guul dareejo eegayay baldayay waxay nagu falin daraf nijaaseedka
وهاجاك دغيستيال انت هدبا ان كا غدبنو halgankii Sayid Maxamed Cabdalla Xasan dagaalkii uu kula jiray Ingiriiska laakiin waqtiyada uu socday halganka